بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وبعد عن كسو جرنا كتابك المقدمة الأجرومية لأبي عبد الله محمد بن داود السنهاجي المعروف ابن أجروم ولد 672 وتوفي 723 أيام الشيخة. هي كتابك القواعد الميسرة على كراسة ابن أجروم على طريقة السؤال والجواب وصارنا أصيرا على وحن كصوب حنا المبادئ العشرة مركب بسم الله عاو كتابك مركب قرينا بسم الله ما على نوكل ميسنا الله صار الرحمن نحرست قد نحرسنا الله صار الرحيم نحرست قار نحرسنا أنا افتتح هذا الكتاب كتابا كفر فرنا شيخ وحير الكلام كلامك هو كلامك اللفظ لوغوي الله وقاسو المركب والإصاري لوغا سؤال مفيد وحفايدينه بالوضع قصد وحكو فايدينه وأقسامه كلامك أقسامتي سنة 3 وصدحوي اسم وفعل وحرف حرف كاسو جاء لمعنى اللودجي وفير سمرك أصودح ودينا عن المتنقة هي قواعد دام أصودح ودينا عن المتنقة مركا عاو مركا عن بالله إن شاء الله تعالى بسم الله أيام بالله إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم marka basmalada culimadu waxay dhahaan fanni kasta waxay ku leedahay munaasabo iyo arrin laga sheego ayay ku leedahay fanni kasta fanniga naxwada fannigu waa maadada naxwada ama sarfiga ama tafsiirka ama fiqiga markasta waa in laga hadlaa bismillaahir rahmaanir rahiim waa in laga hadlaa fanni kasta oo la jooga marka fanniga waa fanni naxwada maanta waxaan noqosaysa ba'daas aan noqosaysa ba'da bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaah ba'da ka bilaabata ba'daas ayaan ka hadlaynaa marka siyaabo badan ayaana looga hadlaa markii naxwada lagu jiro war badan ayaa ku jira laakiin hadda wax yar oo iska bilaabo maadaama kitaabka iska bilow yahay ayaan ka sheegin inta kale insha Allah ta'ala kutubta kale ayaan ku dhameystiri doonaa marka maxaan noo qoray bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ri hadhihi basmala kitaabka fiirso marka saxaa shanaad hadhihi basmalatul muallif wala fi kulli fannin munasaba hadhihi midan basmalatul muallifka bismillaahir rahmaanir rahiim tiisi weyn walaha waxa usugnaaday basmalada fi kulli fannin kasta munasaba waxay ku leedahay waxyaabo looga hadlayo ku leedahay wax looga hadlo ayay ku leedahay munasabo u leh ومناسبتها لهذا الفن كانوا فن نحوه مناسبة إلى هذا معيتها الباء بعض بسم الله قبل عوضت بعض معيتها بعض مرك والباء حرف جر بعض وحرف جر حروف الجر إن شاء الله تعالى هذا شيء دوناي حروف الجر كجودها ولا بعتني كو حروف خفض نواليرة حروف الجر نوالي حروف الجر مرك اللي هي وعبارة بسرية ده علومه مرك حروف الخفض اللي شيء يكونوا كعبر الدوننا وعبارة كوفية مرك حروف الجر كواميقة guud ahaan ayagana waa 21 oo soo wadnaay 21 daas marka la kala qaybinayo ayaa waxa loo qaybinayaa mid asal iyo mid zaid ayaa loo qaybinayaa marka koowaad marka aan fiirino waa kana noo qorantahay marka maxaan ka aqsaam xarf al-jar waa meeqo min haythu al-asal xagga asalnimada iyo ziyadada iyo xagga ziyadada ya asala ya ziyada oo zaida la asal loo qaybinayaa min haythu al-asalatu wa ziyada كم أقسام حرف الجر كم يقول قسمه من حيث الأصالة والزيادة حق الزيادة حق أصل لماذا مركي لفيريو ما يقول قيب سماواتنا 3 أقسام 6 قيبات أيو قيب سما كو وهي 6 حسن عيكني حرف الجر الأصلي حرف الجر الزائد حرف الجر الشبيه بالزائد و6 أسو قيب سما هانري حرف الجر كم يقول قسمه مركي أصل لما زيادة لما لفيري 6 أيو قيب سما كو حرف الجر الأصلي حرف الجر الزائد حرف الجر الشبيه بالزائد maxay kala yihiin mid kasta waa la tacriifinaya waxa la sheegaya waxa uu yahay darbi iyo dhagax iyo geed iyo wuxuu yahay waa la sheegaya tacriifkiisa ay kan kood wuxuu xarf al-jar al-asli sama ma xarf al-jar al-asli maxaa la yiraahdaa xarf al-jar al-asli waxa la yiraahdaa walladhi yufiidu macnan fi al-kalam walladhi kiwa yufiidu faydina macna ayuu faydina fi al-kalam hadalka wuxuu faydina dhexdiisa macna uu faydina isla markaasna ويحتاج إلى متعلق يتعلق به ما له كتعلق وكدجو أيوب يتعلق وعاوى دقيقتين أصلهان ويحتاج حبا إلى متعلق ما له كدجو يتعلق به وكدجو ما له كدجو والله أبطأ أيوب هي مركز حرف جر أصلي وحال يراوح لقى لها لا الريموت كو هو الذي يفيد معنى في الكلام هذا الكو مركز كجرو هي تركيب كأم الجملة ده مركز سؤالك وكجرو وفايدنا معنى وفايدنا إلى صعب هذا المعنى فايدنا معنى وفايدنا كو isla markaasna wuxuu u baahan yahay meel uu ku tacalluqo oo ku dhago ayuu u baahan yahay hay mithaalka waa kana naxw mithaalkana المثال يؤتى لتوضيح القاعدة الله مثالك waxa loo la imaada si qaacidada lagu cadeeyo المثال يؤتى
litawdiix alqaacida in qaacidada lagu caddeeyo ayaa loogu talagala mithaalkiis waa kana marka sirtu min albasrati ila alkuufa sirtu waan socday min albasrati basra laga bilaabo ila alkuufati ilaa kuufa laga gaara ayaan socday u fiirsa marka xageen rabnaa maxalshaahidkeena waa xagee maxalshaahid waxaan ka wadnaa meesha aan ka rabna mithaalka waxaan ka rabnaa min iyo ilaa aan ka rabnaa hoosta ka xariiq min iyo ilaa hoosta ka xariiq maxalshaahidkeena waxaa waaye waa min iyo ilaa maxay yihiin waa xarfuljar weliba alasli waa xarfuljarka asliga marka isdilaaxiisi ma laga hayaa macnaha tacriifka haddaan soo sheegnay iyo qeexitaankii ma laga hayaa haa huwa alladii yufiidu macna fi lkalaam ali hadalka macnuu faa'iideynaya li mintan maanta waxay noo faa'ideynaysaa waxa la yihahdo ibtidaa'iya bilaabasho sirtu waan socday min albasrati basra laga bilaabo bilaabashada waxaa keenaya waa minta waay ilaadan waxay faa'ideynaysaa waxa la yihahdo macaanida waxaa kamid a intihaa'iyo meeshii hadalka uu ku dhamaanaya socodka meesha ku dhamaaday sirtu waan socday min albasrati basra laga bilaabo ila alkuufati ilaa kuufa laga gaarayo ayaan socday okay waxaan haynaa marka ilaa iyo mintu macnaheedu waa bilaabasho ilaaduna waa meesha hadalka ku dhamaa intihaayiya faa'iidaysa walidi yufiidu macna fi lkalaam waa haynaa xarfu jarka asliga oo la sheegayana waa minta iyo ilaada waxayna faa'iideynaa mintu waxay faa'iidaysay alibtidaa'iya bilaabasho ilaaduna maxay faa'iidaysay intihaayiya faa'iidaysa okay والذي يفيد معنى في الكلام وكاينا كو ويحتاج الى متعلق يتعلق ميلو كدغو باهن يالي ميلو كتعلقه ايوب او سرت وان سعودي من البصره بصره لغا بلاو الى الكوفه الى كوفه لغا غاراي ايان سعودي وركاس ان سو علينينو او ايان سعود ان لeenahay هو التعلق حاجه كتعلق سرت واس كتعلق سرت واس اي كدغت تعلق ان شاء الله تعالى نحو مركاس ما ugu fogaatid hoos u gash fahmaysa تعلق يا وليس ان شاء الله تعالى لكن هذا maxaan rabnaa sirtu waan socday min albasrati basra laga bilaabo ila alkuufati ilaa kuufa laga gaar ayaan socday warkaas aan soo celinayno huwa tacalluq warkaas la soo celinaa he ayaa tacalluqi intuu ku tacalluqday mintii ilaada way tacalluqan intuu ku tacalluqan sirtu ku tacalluqan insha allahu tacaala icraabtoodana hadda meeshaan oo kale waxba laguma icraabaa marka insha allahu tacaala baabul icraab aan gaarno halkaas icraabta ka bilaabane laakiin inta hadda ka horeysa mithaalada ma icraabi doono insha allah taala mithaalka icraabkiisana kitaabka dhexdiisana waa noogu imaan doona insha allah tacaala wax badan ولا فاهم لنا هاي والذي ما حرف الجر اصلي وحالي وحلا باري بون لقاله والذي يفيد معنى في الكلام اسلا مركاسنا ميلو كدغو باهنيه سرت اصلا كدغ وحالي الى حرف بحرف جرب ميلو كتعلقان ايو باهين لنا صح حرف بحرف جرب ميلو كتعلقان باهي معنى على قضاء حرف وحو باهي حافظ وكسو دولا قف كستا wax baranaan حرف قسمان way ku forriyeen moogi haa حرف انا waxu baantahay meelaha ka soo duush qof meel uu cunto ka soo cuno oo seexdo uu baahay soo حرف الجر كان وحباي مال الله توبهين سما اساس سرت وان سعد من البصره بصره لقى بلا الى الكوفه الى الكوفه لا غار ايان سعد marka saas marka oo laqbays waa tacalluq marka waxa xarf jarka asliga waa marka midka tacalluq u baahan ha xersana midka tacalluq ma midkii xarowga saxda waa soma aan socono marka waxaan ka hadalnay xarf jar al asl isdilaaxiisi iyo mithaalkiisi aan ka hadalno soma haye حروفته وخاصة قول ليها يعني للفائدة لو شيء قال كان واسكت ترنينا بس كم حروفه الخاصة بحروف الجر لا تاني كود هذا شيء إني لا تاني كون حروف الجر ولا قديقة علماء قارنا حكديقة لا تاني كديقة ابن مالك وكلا وحكديقة فيت ابن مالك وحكديقة لا تاني كديقة مركا حد وقالوا ميدا لقى سارة يجرت ميدا لقى سارة يجرت مركا لا تاني كود نوع حسابي لا تاني كود مركا كترنو كم حروفه الخاصة بحروفته وخاص قول له وحرف الجر أصلي ما راح كلا نقول معين وكوانا حروفه الخاصة وحلنا 11 حروف تسأل الخاصة يا خاص كوا 11 وكوي تبن كو تروية إلى وعن وعلى وفي وحتى والواو والتاء ومنذ ومذ ومتى في اللغة التوذيلي وكي التعليلي وكوي تونكاس وهاي وكوي تونكاس أنا قرار وحروف الجر إسلية أيقنا وحروف الجر لكن يكسيه أفترهان حرف الجر هي الأصل يكيه حرف الجر هي الأصل يكيه صاصة عمر حرف الجر كحيقا وحوينوية ها حرف الجر الزائد انقلنا مرك كيلا بعض ما حرف كاس دافع عند مركوان كلو كدور دورني صفرس ما حرف الجر الزائد حرف الجر الزائد محالي هذا هو الذي كيوي لا يفيد معنى في الكلام هذا الكلام معناه فايدين كلمة مركز كلامكم كجرو هذا الكجرو معناه فايدين إسلام مركزنا ولا يحتاج إلى متعلق يتعلق به ماله كدغنا كاغما باهنا مثالك كفهميسا marka waa kana ma jaani min ahad qofna iimaan ma jaani min ahad cidna iimaan saatiray marka maxal shaahidka aan haysano xarf jarka zaidka la sheegay waa min hoosta ka xarir maxal shaahidka mithaalka waxa laga rabaa waa
من محي تان لأنه هو حرف الجر الزائد اصطلاح ما لقاها يا ها هو الذي لا يفيد معنى في الكلام هذا الكلام اللي معناه ما فائدينه كو إسلام مركزنا ميلو كده كاجم بهن ميلو كده هه كاجم بهن وسكو في لين ورجع اللهم علينا ما جاءني من أحد قفنا يمنا من تاس مركا اللي معناه ما فائديسو حجره معناه أصل أحان أيضا أي سقص بيسن تاجرو ليرا سلو التوكيد أتكينا فائدينه نفيجاس ما جاءني نفيجاس أي أتكينا سا waxaa laga wadaa marka macno ma faa'iideynayso waxaa laga wadaa kaas looma diidanay macaanidii kale oo minta lagu yaqaanay ma faa'iideynayso waa macaanidii kale he ma faa'iideynayso waa tawkiid ahaan taas waa iska haysanaysaa si loo tawkiidka macno la sheego oo saas ma sii ahaan laakiin waxaa la sheegaa macaanidii kale minta macaani badan ay leedahay macaanidii kale ma faa'iideynayso ibtidaa'igii ama macaani kale badan ay leedahay mintu marka waxaa lihi huwa alladii laa yufiidu macna fi lkalaam hadalka macno ma faa'iideynaya kow isla markaasna walaa yaxtaaju ilaa mutacalaqin يتعلق به ما لو كده جنا كاجم بحن مثال كم عتها ما جاءني من أحد قفنا يوم مركو عن سنة ما جاءني من تن هدي هذا لقى صار معنو ما لابا أو ما جاءني أحد قفنا يوم ما سيدي ديو وجوده كعدمي هو هدي هذا السكيد هنا حلابا هنا ما جاءني أحد قفنا يوم هدي هذا السكيد هدي لو ضر ما جاءني من أحد نفي قسم بعد كان يسموه معنو ما لابا لكن كيور هدي لقى صار سرت من البصرة الكوفة هدي لقى صار أو اللي سرت على البصرة الكوفة هدي السكيد waxa macna ma yeelanayso waxa macnaha macnahay bilaabashada socodka meesha ka bilowday iyo meesha ku dhamaanay meesha waa ka baxaya meesha uu ka baxaya ana socota sheekhi ayaan socona marka waxaan huwa alladhi la yufiidu macna fi al-kalam wala yahtaaj ila muta'allim marka mithaalka isdilaaxiyada saas u kala xifdi hada hal meel isku qalado hal shard hal qayb hadaad ka qalado taana dii lagu keenay ama su'aal caadi lagu weydiiyo oo isdilaaxan labadan saddexdood isku eegin hada hal meel ka qalado hal qayb ka mid ah hada ka qalado حبد الرجال قاسي ما صوت واحد كله يسكب بدلا سما حجر قاسينا ما لهنا هذا هل ملك غلط وقطر سكافير هاي كم حروف تسوى ميقان حروف تسقاس كان هو ميقا على حروفه 4 و4 حرف أصلا 4 تامر كقاس وما له لكن ولا وحلا زايد كيالا له وحلا أصل كيالا له كو حروف تسمعت الغاس كمان نقدر نسمع جيد كم حروف بس عندنا حروفه 4 و4 وهي محي كليين من والباء والكاف واللام وافرتاس من والباء والكاف واللام وافرتاس marka xuruftan waxa la isku yiraahdaa xarfu jar azaid wa afartan xarfu jar azaid hadaad maqashid oo xarfu jarka ku jira waa afartan laakiin marmarka qaar waxay noqon karaan asli noqon karaan marna zaid noqon karaan laba kaar haystaan hadba kaarkay rabaan ay gashara culimada qaar shuruud uma shardinayaan culimada qaarna waxay shardinayaan shuruud u shardinayaan waa intaas أركي دونا كتبت كلام غير دونا إن شاء الله 4 مركب معنا من والباء والكاف واللام حريرنا واشي من الحيث وكل شيء والباء والكاف إذا ما زيد واللام فحفظات تكون رشيدة أولا والباء والكاف إذا ما زيد واللام فحفظات تكون رشيدة صدح وشيء من تنسد بنو شيء هروك شيء لكن بيت كسب حقوق شيء صدح وهي لسه التصامع مركب حكب عن حرف الجر الأصلي حكب عن حرف الجر الزائد مركب أساس حرف الجر الشبيه بالزائد انقلنا كي صدحات صوّد إلى صع ما حرف الجر الشبيه بالزائد حرف الجر الشبيه بالزائد محوية شيء غير صع ما حرف الجر الشبيه بالزائد حرف الجر الشبيه بالزائد محوية وهكذا كان وحالي هو الذي يفيد معنى في الكلام ولا يحتاج إلى متعلق يتعلق به حرف الجر الشبيه بالزائد وحالي هو الذي يفيد معنى في الكلام كو هذا المعنى فايدينا إسلام مركزنا ولا يحتاج إلى متعلق يتعلق بما لو كنت تعلقنا كعقبان هاي شيء قيبت هوري يوجي حرف الجر الشبيه يقولك كاس القروا شيء كاس القروا هاي ما الشكر بارك الله فيك هاي قيبت هوري يوجي هو الذي يفيد معنا في الكلام مركي اللي يري لبادي حتى الصدى في يوجي أصلي قيبت الضمانة زايد يوجي قفك سؤال اللي ودي أسكال ولا يحتاج إلى متعلق يتعلق بينه حقيقي حرف الجر الزايد يوجي مركز سوا ولا موجود له واسق مركز موجود والله نعم والله صعدها لكن مقعي سو حلو بحشي حرف الجر الشبيه بزايد حرف الجر الشبيه بالأصل محلو ده هو كاسبه وجهي ووجه لكن علماء صانع كويس إصطلاحان صانع وبحشين ولا مشاحاته في الاصطلاح علينا اصطلاح بعض هذا كم تاجن صانع لو بحشين لكن حرف الجر الشبيه بالأصل هدي له دهنا لملا لكن اصطلاح سيدان قدر رسا ما عانوا بقول الله لبح مركب حالنا هو الذي يفيده معنا في الكهذا كمعنى فايدنا isla markaasna wuxuu u baahan yahay ma u baahnahay meel ku taalo ma baahna midaalka waa kana rubba rajulin kariimin laqiitu macnihiisu maxaa rubba rajulin badana ninkaasoo kariimana laqiitu aan la kulmay
ruba rajulin nin badana ninkaasoo kariiman wanaagsan laqiitu aan la kulmo. marka maxal shaahidkeena waa xaggee waa ruba maxay tahay aan leenahay waa xarfuljar he ila soc ruba maxay tahay waa xarfuljar ashabiihu bizaa'idka la sheega waa ruba hoosta ka xariiq ruba maxaan leenahay waa xarfuljar he ashabiihu bizaa'id marka macnihi ma laga isdilaax ma laga hayaa huwa alladii yufiidu macna fi lkalaam aa la yidhi ruba maanta waxay noo faa'idaysaa laba macnay faa'idaysaa carabigiisa laba altaqliilu waltakhiir altaqliilu waa yarayn iyo watakhiir badi labada waa laga laqbeen karaa ruba rajulin nin badana ninkaasoo kariiman laqiitu aan la kulmo maxaan ka macnaynay takhiir ruba rajulin nin yara ninkaasoo kariiman laqiitu aan la kulmo hadii la yidhahna waa taqliil taqliil takhiir marka labadaas macno way faa'iideynaysaa marka ruba waa ka haynaayo weli yufiidu macna fi lkalam waa ka haynaa isla markaasna walaa yaxtaaj ilaa mutacalliq tacala meel ku tacalluq kaaga baano ruba rajulin nin badan ninkaasoo kariiman laqiitu aan la kulmo hadalkii hadda aan soo celinayni markaan zaa'idka joognay maanaan soo celin hadda waa ila socotaa soo sheekh ima qaylushat ila soc haddaan isku saxati waa lagaa tegaya marka maxaa yidhi huwa alladii yufiidu macna fi lkalaam walaa yaxtaaju ilaa mutacalliqin yatacallaqu bi waa saas wax tacalluq ahe kaagama baahna oo rubadaas inay tacalluqda hadda uma baahan xarfu jar marka waa ka baxna shabihun bizaa'idin waa ka baxna xuruuftiisa markaan u tagno kam xuruufu lkhaasatu bi xuruufta khaaska waa asaga waa meeqa xuruufu lkhaasa waxaan leenahay waa sitatun waa lix kow wahiya ruba kow khalaa cadaa xashaa lacalla lowla waa lixdaas sideedu xifdi tan waa lagaa rabaa tiyar waa lagaa rabaa kuwii kale waa lagaa rabaa iska xifdi meelina saartaa lagaa rabaa ruba khalaa cadaa xashaa lacalla lowla lixdaana waxaa laisku yidhaha xarfuljar ashabiih bizaa'id aa laisku yidhahdaa xarfuljar he ashabiihu bizaa'id macnaha asli ma noqonayan zaa'idna kaa noqon weligood maxay ku joogaan xarfuljar ashabiihi bizaa'idi ku joogaan sooma waa saas waa markay xaraf yihiin khalaa iyo cadaa iyo xashaa iyagoo warka la gelinayo kitaabka dhexdiisa noogu imaan doontaa baabun bamsuwaat alasmaa qaar ahaan mustatnaha noogu imaan doontaa insha allah ayagoo ficil noqonayo oo arki doona laakiin marka xaraf laga dhigaa laga hadlaayo waxay ahaanayan xarfuljar he ashabiihu bizaa'id waxaad ku laabataa marka bismillahi raxmaan raxiimta ku laabo bismillahi raxmaan raxiim warkeeda oo laga baxay bismillahi raxmaan raxiimta ku laabo bismillahi raxmaan raxiim macalshaadkeena maxaa bismillahi raxmaan ka rabni warkaan dhan waxaa noo keenay ba'daa noo keentay sooma ba'da bismillahi raxmaan raxiim ku jirtaa oo warkaan uu ka dhasharto ba'dan bismillahi raxmaan ba'dan maxay ka tahay xarfujarki saddexa u qaybin xarfuljar alasli xarfuljar azaa'idi xarfuljar ashabiih bizaa'id yay ka tahay saddexdii kow asli way noqonaysaa kow zaa'idna way noqonaysaa labadaasba waa laga dhigi karaa xarfuljar he alasli waa midka caadi ku taawa xarfuljar azaa'idna way noqotaa waa la socotaa ama xarfuljar shabiih bizaa'id maxay noqoweys macnaha faa'iida wala yufiidu ayada waa ahayd xarfuljar ashabiih bizaa'id maxay u noqoweys zaa'idka tacalluq ma baahna soo iska daa hay sheekh xuseen maxay xarfuljar shabiih bizaa'id maxay noqoweys ya xagaad maxaan ku yidhi bacdan haystaa bacda maxay waxaan asli way noqon kartaa zaa'idna way noqon kartaa shabiih bizaa'id maxay noqoysaa laakiin haye labada way tahay kan maxay noqoysaa laakiin ya xuruuftiisa khaas oo asaga ma ku jirto macnaha xaruufta shabiih bizaa'id xuruuftiisa kamid ma ahanba oo lixaba sooma ruba khalaa cadaa xashaa lacala lowla ba maa ku jirto maya xuruuftiisa kama mid maahanba xuruuftiisa he kuma jirta laakiin asligana way ku jirtaa oo waxaan idhi kuwan min walba walkaaf wallaam asli way noqdaan zaa'idna way noqdaan saasay labada dhinac u gasho sooma inta walba way ku jirta xaggana way ku jiri kartaa asli way iska noqotaa bismillahi raxmaan baad ku jirta aslina waa laga dhigi karaa zaa'idna waa laga dhigi karaa hadba saa ka macnaysa ama shabiih zaa'id maxay noqon weysay xuruuftiisa kamid ma ahanba ruba khalaa cadaa xashaa lacala lowla ba kuma jirto sooma ila soco marka taasa olaas maskaxda lagu dhisaa waa su-aalahaas waa iska imaanayan aan socono marka waxaan idhi bismillahi raxmaan baad ku jirta waxay noqon kartaa xarfuljar asli way noqotaa waa sida caadiga ku tahay haddana asliga ka macnayn zaa'idna mararka qaar waa laga dhigi karaa su-aal kala imaata haddana oo cashkaa saas qaybtaanay la socotaa weli taas waa lagaa rabaa hadhow isku iloobin xarfuljarka ba'du yay ka tahay saddexdan asli iyo zaa'id labada way noqonay okay su-aal kala imaatay kulligood waxaa ku jira way tacalluqayaan ma tacalluqayaan ay ku jiro sooma tacalluqana waxaan waa wax dhegitaan waayo meel wax lagu dhejinayo yaa wax lagu tacallujiyaa aslan horta xaggee wax lagu tacallujiyaa kalaamka sida noo socda saddex uu noqon doona ismun wa ficlun xarfun uu noqon doona sooma isimka waxaa lagu tacalluji karaa ficilna waxaa lagu tacalluji karaa sida badan ama xaraf asaga waxba laguma tacallujiyo xarafkee haduu tacalluq kaa rabin asaga waxba laguma tacallujiyo marka shayga wax lagu tacallujiyo waa
laba mid kamid imaa inuu ism wax lagu tacalujiyo wa imaa in ficil wax lagu tacalujiyo labadaasna waxaan sii dooranay ficilkaan dooranayna halkaas noo joogta marka kitaab kale la bilaabo halkaas laga sii wada basmalada ku ilaa ma joogto warkeeda war badan ku sii jira halkaas laakiin laga sii anbaqaada ficil aan dooranay noo joogtaa sababma hadda halkaas laga sii wada bis arrahmaan arrahiim sagaal wajiyo ku jirtay xisaabada soo socdo oo gaari doona insha Allah taala hadda laakiin lama sii deena hala ku laba su'aal markaa iska ilooyin hadhow dad dhigi doon laba su'aal cashku ma jirto sheeko intaa in laqbaysan halkaan ay waqti khala lowla lacalla ku waqti cashku lowla oo nooga ka dad dhigi doon laba su'aal waa laga rabaa maxaa laba su'aal maxaa xarfu jarkan ba'da yay ka tahay saddexdii yay ka tahay iyo yaa wax lagu tacalujiyaa ay aan socono marka bawl kalaam